السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذا سلام يا دمانتي ميل كستا جوجتان. halkan aad iga daawanaysaan waa channelka YouTube-ka Qarash Media. waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka ii share garaysaan, sidoo kale inaad subscribe aad saartaan, gambaleelkan inaad furataan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal. quraankeena kariimka waxaa ku jirta suurad loo yaqaan suuratul Hujuraat. suuratul Hujuraat waxay ka hadlaysaa akhlaaqiyadka iyo aadaabta qofka muslimka looga baahan yahay inuu ku tilmaaman yahay. kow aayadu suuradu waxayna baraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa iyo xukunkiisa qofka muslimka markuu arko inuusan ka hormarin wax kale oo uu hoggaansamo hadalka ilaahay iyo xukunkiisa. sidoo kale suuradu waxayna baraysaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi meeluu joogo inaana lagu qaylin, hal rasuulku hadduu hadlayana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inaan hadal lagala kormarin, maadaama rasuulka hadda uu geeriyooday. meel rasuulka lagu hayo hadalkiisa iyo xadiidkii rasuulka iyo xukun rasuulku jideeyayba inaana cid kale wax kale lagu hormarin, loo hoggaansamo lana aqbalo. sidoo kale suuradu waxay tilmaamaysaa qof kamid ah dadka hadduu kuu keeno kalaam iyo hadal ama shay uu kuu keeno cid kale uu kaaga keeno, adiga markaa liddi kugu ah ama wax lagaaga sheegayo ama aad xun aragto ama meelaha aad ku aragtaba qof uusan kuu keenin, inaadan hadalkaas ama shayga ka falcelintiisa aadan ku degdegin isla markiiba, aad iska hubiso, aad ku dadaasho bal marka hore shayga inaad xaqiijiso. markaad xaqiijiso kadib wixii kula gudban markaas samee. waa meeshii Soomaalidu ka dhahdo hubsiyo hal baa la siistaa. sidoo kale suuradu waxayna baraysaa laba cid hadday dirirto oo ay dagaalanto, laba qoys, laba qabiil, laba qof, waxay doonto ha noqotee, dadka kale waxa kala gudboon ee meesha ku dhex nool ama la nool oo ah inay meeshaas ay labada qof kala dhex galaan, labada shay kala dhex galaan, cadaalad ay ku dhameeyaan, cidii markaa khaldan khaladkeeda loo sheego, lana qabto cadaaladna lagu dhameeyo. sidoo kale suuradu waxay noo tilmaantay adigu muslim baa tahay, maxaad muslimiinta kale isku tihiin. waxay suuradu inoo sheegaysaa inay muslimiintu ay yihiin walaalo, inay walaalo yihiin oo dad qofka muslimka qofka kale muslimka waa walaalkii, jinsiyadu doono ha lahaado, wadanku doono ha ku noolaado, luuqadu doono ha ku hadlo, maadaama uu yahay muslim waa walaalka meeshuu doono ha jooge. sidoo kale suuradu waxay noo tilmaamaysaa inaysan banaaneen inay xaqiraan ama ay lidaan ama ay ku jaasjaasaan ama ay wax u geystaan rag kale ama dumar kale. haddaynu qaab kale u dhigno ka guud ahaan qof islaam uma banaana inuu xaqiro, inuu ku jaasjaaso, inuu liido, inuu wax ka sheego qof kale oo muslima. sidoo kale suuradu waxay noo tilmaamaysaa in naanaysaha iyo hadallada qallafsan ee cayda iyo aflagaadada leh ee qofka markaa lagu tilmaamayo uusan raaliga ka ahayn in aan lagu naanaysin, qofkana loogu yeelin, loona bixin inoo tilmaamaya suuradu inoo tilmaamaysaa. sidoo kale suuradu waxay noo tilmaamaysaa malaha in laga fogaado oo aadan dadka mala xun ka malaynin. waxayna suuradu ina leedahay in badan oo malaha kamid ah waaba dembi iyo buhtaan iyo been abuurad, marka inaad malaha ka dheeraato intaad ka dheeraan kartana suuradu way noo tilmaamaysaa. waxay kaloo suuradu inoo tilmaamaysaa inay mamnuuc tahay ama xaaraan tahay waxa loo yaqaan tajasuska. tajasuskuna wax kale maaha, waxa weeye dad sheekaysanaya ama qof hadlaya inaad hadalkiisa dhagaysato ama sheekadiisa aad dhagaysato ayagoon markaa raalli ka ahayn ama kuba ogeyn, xitaa hadday ku og yihiin oo aad raalli aysan ka ahayn ayaga oo ku karaahiyeysanayaan oo ku dhibsanayaan ma banaana. taasina shareecadeenu way tilmaamaysaa, suuraduna way naga tilmaamaysaa inaysan banaanayn. sidoo kale suuradu waxay tilmaamaysaa oo ay noo sheegaysaa inay mamnuuc iyo xaaraan tahay waxa loo yaqaana in qofka la xanto oo wax laga sheego heer ay alla u gaarsiiyey. miyaad jeceshahay walaalka oo meeyda oo dhintay inaad hilibkiisa cunto? maya wey, aad buu qofku dhibsanaya u karaahiyeysanaya. sidaas oo kale qof islaam markaad xamato ee aad wax ka sheegto waxay la mid tahay qof walaalka iyo muslim hilibkiisa cunay. sidoo kale suuradu waxay noo tilmaamaysaa in aynu dhammaanteen midabkayn doono aynu lahaano, luuqada doono aynu ku hadalno, wadankaynu doono aynu joogno, dhammaanteen inaynu hal meel ka soo wada jeedno oo nebi aadam calayhi salaam aabba inoo yahay, xaawo hooyadeen inoo tahay, ciid laga abuuray, asalkeennuna ciidda aynu ka soo jeedno. waxa qabaaisha loo sameeyay ama qoysqoyska loo sameeyay inay tahay in la isku garto oo la isku xiriiriyo. sidoo kale waxay suuradu inoo sheegaysaa qof ka fadli badan
ama ka laandheeraysan, ama ha ka maal badnaado, ama ha ka hanti badnaado, ama ha ka cilmi badnaado, ama ha ka qurux badnaado, ama ha ka aqoon badnaado, ama ha ka caruur badnaadee qof wax dheer inuusan jirin oo laandheero ah aan ka ahayn ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa iyo cibaadadiisa. waxa keliya waxa laisku dheer yahay ama lagu kala fadli badan yahay ama lagu qiimo badan yahay alla agtiisa waxa weeye waa ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa iyo cibaadadiisa. laakiin anaa laandheero ah, anigaa kaa hanti badan, anigaa kaa qurux badan, anigaa kaa cilmi badan, anigaa kaa aftahansar, kullu daalika waxaasoo dhan ilahay agtiisa qiimo kama laha wey, dadka unbaa qiimeeya. aad baad u mahadsantihiin. intaasaan ku gabagabaynayaa. asalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.